رسول الله صلى الله عليه وسلم تليها عيدا كدبطمسكا وسيرك arrimaha gudaha maayrada degmooyinka suldaanka guud ee dabdamiska xogeyaasha iyo difaacadan toddobaad ee ka qalin jabinaysa halkan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed waxa farxadii ah anoo maalintii horena joogay halka difaacadan soo xarootay maanta aan arkaysay yihiin oo aad iyo aad ay u kala fog yihiin in maanta xafladiini qalin jabinta aanu kala soo qayb galno aad iyo aad bay farxad noogu tahay ciidanka dabdamisku halkuu generaalku ka soo qaaday maalintuu bilaabayay iyo halkuu maanta marayo waa kaafiya kala dheeri haween maaha ciidan oo kaliya lama samayn sida aad la socotaan magaalo kasta waxaa ugu tegaysaan xarun dabdamisku leeyahay oo ah midhihii ka dhashay xukuumaddan maanta jirta waxaa laydii aasaasay maaha dab oo kaliyana badbaadisaan mar ciidan qaran baati oo difaaca dalka galaysa mar waxa badbaadinaysan kuwa daadku qaado mar waxa badbaadinaysan dabkii baxayay waa ogtiin oo ciidamadeedii ka horeeyay bisad bay soo saareen oo badbaadiyeen ay weyn ba halka ku xidhan oo ayga weyn wax laga reebay daad waxyaabahaas oo dhan baa idin sugaya waxa halkan ammaan baa leedin ka soo jeediyay ammaanta marka goboladii ku noqotaan haddaa qaadkii iyo sigaarkii iyo sheekadii iyo asxaabtii ku noqotaanna dee tarankii ka hadhe haddaa laakiin halkaa kasoo wadaan berito waxaa igsan doontaan hogaamadaas si uu sheegay maayarka laascaanood maanta jira ee dabdamisku leeyahay baa igsan doontaan aqoontiina ina kor u qaadaan baa la doonayaa inaad daacad dalka ugu shaqaysaan baa la doonayaa in goboladii iyo degmooyinkii aad ka timaadeen marka ku noqotaan aad noqotaan tusaale u noqotaan baa laydinka doonaya kolley annagu ka gobol ahaan way noo joogaan maanta gobolka togdheer ama degmada burco marka dabdhaco wax 5 daqiiqo ka yar ama 4 daqiiqo ka yar baad ku noogu yimaada waxa weeyaan waxaanu ka raysanay maalmihii hore ee dabku dhici jiraan waxba noo joogin laba gaadhi oo midna dawladda hooslada midna daafkileeyaba noo joogay marka ay dabka ku dhacaan xitaa dadka shiidi jiray markii dabkii oo gurigii gubtay la arko soo raagiba la oranay dadka ku kacaya dhagax baa la eeganaya maanta laakiin waa la bartay hoonkooda marka laga baxa waxa la idinka doonayaa inaydan balwadna ku habsaamin inaydan sheeko ku habsaamin inaad mataqaanaa dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina baa difaac u noqotaan ina badbaadisaan habeendood waxaan daawanay maalin dhow daad halkan ka dhacayo inuu ko biiteenay intuu dhigay dadkii ka soo saaray waa halkan agtiin wax aad iyo aad loogu farxo weey marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idinku ducaynaynaa ilaahay inuu idin barakeeyo ilaahay kuwii mataqaanaa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca ilaahay kuwii dabka ka badbaadiyo ummadooda ee daadka ka badbaadiyo inuu idinka dhigo aad iyo aad baan idin salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu